kusoo dhawow channelkayga Nahyan Cooking. waxaa ka heli kartaa cuntooyin kala duwan, isqurxin iyo waxyaabo kala badan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. asxaabtayda kusoo dhawaada channelkayga Nahyan Cooking. asxaabtayda ugu horreyn waxaan idinkaga mahadcelinayaa dhiirigelintiina, commentiga quruxda badan sida ay ugu soo qortaan. waa mahadsantiin dhammaantiina, inta hore ila joogta inta hadda ila joogta ugu soo biirtay dhammaantiin waa idin mahadcelinayaa. waxaan sameysanaynaa bahalkana maanta waxaa laga sameyn rabaa cabitaan iyo kareem, ma fahanteen? kareem iyo cabitaan aan sameysanaynaa. kareemkana waa ila arki doontiin, kana juice aan ka dhigayaa, kana waxaan ka dhigi rabaa scrub ama kareem wajiga insha Allah. kana juice aan ka dhigayaa ama cabitaan, kana waa xoqaaya. kan ma rabi inaan biyo ku daro, kan waa shiidayaa, biyo ku daraa iyo sokor waa shiidayaa. laakiin kan waa xoqaaya ama waa howlaaya, ma fahmaysa? baashana isticmaalaya meesha yaryar, meesha waaweyn maahan, meesha yaryar isticmaalaya. because biyo ka rabnaa soo maahan, biyo haddaa ka rabtid meesha yaryar inaa isticmaashid waaye. marka meesha yaryar isticmaalaya. kan kareemka ka sameynayna, kana juice ka dhigayaa ama cabitaan. marka kana soo hoqonaya, kana waa soo jarjaraya, waa isku soo laabanayna insha Allah. asxaabtayda waa kaasa soo ma aragtaan, qajaarka asiga biyo ka samaysan, biyo uma baahna in lagu daro. kareemkan qaabka ugu dhigi doono waa ila arki doontiin insha Allah. cadkan waa soo dhameynaya, waa soo wada hoqaya, kii kalena waa soo jarjaranaya, sokor iyo biyo ku daraya, soo shiidaya insha Allah. waa isku soo laabanayna insha Allah. asxaabtayda waa soo dhameeyay, waa soo wada hoqay, soo ma aragtaan. naqshaan meelkaana inta soo saarta digsiga aan ku soo gedinaya. kan wax biyo ah kuma dareyno, biyihiis la isticmaalayno. kan kii aan scrub ka sameynayno waaye wajiga, scrub ama kareem sida taqaana. waxaasoo biyo ka soo baxay cadkii oo qajaarka ahay. qajaar ani qajaar leh oo aqaana, hadda kala u taqaanid. af Soomaali ani qajaar oo aqaana, Englishna waxaa lagu dhahaa cucumber. waxaan ku soo darayaa biyihii qajaarka inta ku haysanaa. jeex qajaarka ahay aan soo hoolay, biyihiis waaye, wax biyo ah kuma darin, biyaha qajaarka bas waaye. waxaan ku soo darayaa corn flour ama waraango, af Soomaali waraango waaye corn flour. marka waxaan aadaynaa dabka, kan dabka saaraynaa. dabkan soo saaray asxaabtayda cornflowga iyo biyaha qajaarka. dabkan aada ugu gaabay, meesha ugu dambeysa u geeye, meesha ugu dambeeya u geeyey. waa la joogaa, kama tagay. haddaa ka tagtid wax yar waayo, waxaan way gubanaya, ma fahantay? cucumber wajiga maasha Allah, wajiga waa qurxiyaa, wasaqda iyo madowga ka qaadaa. caadi ma ahan. qajaarka ka faa'iideysta insha Allah. qajaarka iyo corn flour waa waxa hadda isku soo qasay. wax yar dabka markay noo saarnaato ka daminaynaa, waa ila arki doontiin insha Allah. asxaabtayda diyaar waaye kareemki ama scrubki. marka hadda waa uu jilicsan yahay xoogaa, laakiin marka oo dabka laga damiyo uu qaboobo wuu adkaanayaa. marka waa ka daminayaa. hadda diyaar waaye, wax yar waa digsiga ku dhex lumaya, soo ma aragtaan? marka insha Allah waa inaan ku shubaa, waa ila arki doontiin. cabitaankii hadda soo shiidanaya, waa isku soo noqonayna. asxaabtayda waa soo shiitay juice-kii ama cabitaankii.
haddii aad rabtid inaad caloosha iska jirtid waxaa ku miiranaya liin dhanaan qajaarka juice-ka oo qajaarka waxaa ku miiranaya liin dhanaan insha Allah soo shubanaya oo soo laabanaya insha Allah asxaabteeda waa soo shiiday juice-ki aragtan sunaha ma sha Allah tabaarak rahmaan cabitaankan oo cucumber marka shiidaysid biyo badan kuma daraysid because asaa biyo ka samaysan marka wax yar biyo galaas halfkiisa camal ku shiiday marka waa kaasa nahay wax la noo soo walaaqda ayaduna ma cabtaay dheeninayo ana idin tijaabinayo idin cawaa juice-ka cawaya asxaabteeda bismillaah واو معان ما شاء الله أنا هذا حال مرة مقرقري كريه كسكسنا وعبر مرة مفهمتين أصحاب تيدا فريج كاشنا حالا مركو يقبوبو عن كسكس وعبايا حال مركوب موضوع قرقري كري موضوع دمين كري مركان أصحاب تيدا وكاسا هذا وين كيف فائدة جوسكي أما عبيتانكي حافظ أنا كعب مثل ما أعرف كان قولوا هايدين إنه هي وحيس كوال ولاقنا لكن ما عدت أيضا بق أنا يبينه شيء يا قجارك جوس ولا قد إكتا ولا عبا إن هدي على شربتي إن أسكت جرتي لأن أنا نقوميرنا إن كريم كنوا كان صاروا نقصوا بحي سكراب وايد إن كعنتي ذا مرنا يا بسم الله سما أركتان مركا مرسني ستالابتا وبوديها كلها لكن وجهها وين أخذها وجهها أقنيسا وجه مركا صابون أما فيس واش أكو أقلت كدب أمرسني ألابتان أنا دلنا كشونا يا دلنا كشونا إن فريج كاشنا فرينجر كاشنا هذا فرينجر هي سنين بناك وادي كرتا إلا يوهال معلن أما الله معلن دب مالهم لكن waxaa fiican haddii farinjeer ahaysanin wax yar oo markaas amarsatid in aad samaysatid saasa ku fiican ani laakiin dhaladaan ku shubanaa fridge-ka gashana kaskasa u marsanayaa wax kasto ilaa aad ka helaysid natiijada maalin kasta waa marsanaysaa 1 week marka maalin kasta aad marsatid wajiga oo ku nuuro markaas kadib waxaa samayn kartaa maalin dhaaf ama 2 maalin kadib waa marsan kartaa wax dhib ma lahan qajaarka aad wajiga ugu fiican yahay indhaha hoostooda dadka madmadow kale aad u caawinaya sidoo kale haaray waxa sadaleeda ku caawinaya qajaarka caadi ma ahan ma sha Allah fitamiinaadka uu haystan inta lagu soo koobi karo vitamin E ga ku jiro marka faa'iideysto walaalay qaaliga waa kaasa qajaarka waxaan ka dhiganay kareem iyo maxaa la scrub iyo waxa ka dhiganay juice ama cabitaan marka faa'iideysto walaalay qaaliga kareemka wajiga waa dhaqay waa marsanay xoogaa marka ku joogtid oo kugu qalal kadib biyo isaga dhaqaysa marka kugu qalal kadib saabuun kuma dhaqaysid biyo isaga dhaqaysa ka faa'iideysto walaalay qaaliga